السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن سلام ولا ليغا شرفت لما يربو الدنيا دعالة ذاك جوكتان وولاشين بارلين إيا مركلة. waxaan rabaa maanta inaan sameeyo sawaayad oo caano iyo biyo midnaba lagu qasayn la socod wanaagsan. halkan waxa iigu jiro oo ku qasi rabaa 250 gram oo yogurt ah. kanaha sida u jeedaan yogurtiga 250 gram ka waxa waaye qaadada 2.5 aan ku soo shubay la socod wanaagsan. halkan waxa iigu jiro qaadadan 15 gram ka labadeed oo sokor ah waa 30 gram iyadana. halkan waxa iigu jiro saliid qaadadan labadeedan ku soo qasay waa 30 gram la socod wanaagsan. xabad ukuna halkan waxa iigu jiro 5 gram oo cusbo ah waa tan 5 gram ka cusbada aan ku soo cabirtay. waxaan kaloo ku dari rabaa bicarbonate iyadana 5 gram waaye bicarbonate sida u jeedaan waa tan 5 gram ayaan ku darayaa 5 leh. waan isku qasayaa la socod wanaagsan. aaday u macaan tahay una fududahay biyo iyo caano lagu qasi maayo midoodba waad ka heli doontaan. kadibna waxaan sameyn rabaa dhexdan iyadana wax ka gelin rabaa alaaba aan soo diyaarsaday la socod wanaagsan si aad ugu faa'iidaan caruurtana aad ugu samaysataan insha Allah walaalahayga sharafta leh. وكان واسدح قليي سفي عنا اسوق لاقيسه. halkan waxaan ku heystaa 400 oo garan oo waxa ay bur qaadadan 100 ka afarteed waaye. cabirka yuusan ka qaldamin walaashayda ama walaalkayga sharafta lahow waad ku shubaysaa waad ku qasaysaa. waa isku soo qasaa waa isdhex gelinaa idinka arki doono wax kale oo lagu shubaayo ma lahan. intaas kaliya isku filan. cabirka inuusan ka qaldamin waaye muhiimadda. hadduu cabirka ka qaldamo wixii ma ku toosayaan. ku dadaal inuusan cabirka ka qaldamin si aad wax fiican u samaysato insha Allah. waan soo qasaa waana isu imaahaynaa. waa kan waa isku soo qasay waa soo diyaariyay. hadda waxaan rabaa inaan jarjaro oo kuuskuuso kadibna aan daboolo 5 daqiiqo. 5 daqiiqo markuu daboolnaado waxaan rabaa inaan ku bilaabo dubow. laakiin inta uu ii daboolan yahay aan rabaa inaan isku sii qasto wixii aan dhexda ka gelin lahaa la socod wanaagsan insha Allah walaalahayga. waan isu soo naqad wanaagsan wixii aan rabay inaan dhexda ka geliyo sawaayada inaan isku qastaan rabaa. waa maxay waxa waa uusti ama farmaajo xoogaa ayaad soo cabiranaysaa. aniga hadda xoogaa baan soo qiyaastay mozzarella ama fat uusti aan dhahnaa annaga kuley waa caano la fadhiisiyaan u malaynayaa. isku darayaa waxaan kaloo ku darayaa xabad ukuna. intaasaan rabaa inaan isku soo qaso isdhex geliyo isku burburiyo kadibna aan sawaayada dhexda ka geliyo. idinkaa arki doona kana heli doona insha Allah tacaala la socod wanaagsan. inta yaray ii daboolan tahay aan rabaa. qasabna maahan inaad ka gelisid
kaligeedna waa suubsan kartaa haddaad doonto, laakiin aniga iyadoo wax laga gelinayaan idin tusaaya. waxaan rabaa haddii aad doontaan inaad ka gashataan, haddii aad rabtaan aad maaragtay ka gelinin, kolley idinkaa markaas saa u rabtiin garan karo, ma garatay. marka ani kolley waa kan intaana isku soo qasaa, isku soo burburinaa. la socod wanaagsan walaalahayga sharafta leh. waa kan waa isoo dhex geliyey, iyada dhan waa kaas sidaasay u ekaatay. waxaa jira ilmo badan oon cunaynin farmaajada, qaboobahana ku nool. marka haddaad doonto qaabkaanaad u siisanaysaa, ma dareemayaan, mana ka dhadhaminayaan, wuu macaan yahay. marka kusoo dhawaada walaalahayga sharafta. waa kan hadda waqtigii waxaa la gaaray aan fidin lahaa, dhexdana wax ka gelin lahaa. la socod wanaagsan. waa kan burkii waan dabooshay, 5 daqiiqo waa la gaaray. hadda waxaan rabaa inaan fidiyo, marka la socod wanaagsan. waa kan qaabkan sida uga gelin raba dhexda. marka ugu horeysa farahaad saan ku siinaysaa, uma baahnid inaad fidisid. marka xigtaad fidinaysaa, waa kaas. waxyaraad soo qaadaysaa, dhexdaad ka gelinaysaa. sidaasaa isugu qabanaysaa, sidaasaa isugu qabanaysaa. afkaa isaga sharooteynaysaa saas. kadib waa kan xabadaana idin tusaaya. afartan kalene raali noqda, 3dan kalene anaa soo fidinaayo. qaabkan u dubi doonaa haddana idinkugu xijina insha allahu tacaala. waa kaasaha si fiicana isaga sharooteynaysaa. kaasaa tartiiba u saaraysaa, aa u fidinaysaa. si tartiiba u saaraysaa, u fidinaysaa. idinkaa arki doono sida uu noqon doono. waxaan rajaynayaa inaad ka heshaan, waan idin rajaynayaa insha allah. ciyaalkana waxtaray u leedahay, ha moogaanina. ani ciyaalkayga saanaan u siiyaa, sababtoo ma jeclo farmaajada, ma jeclo. markaan u saaro rootiga sidaana ugu sameeyaa, mana dareemayaan, wayna ii cunayaan. waa kaasaha halkaas. xabadan intay ii aalaysaa, anaa soo samaynayo 3dan kale. soo naqad wanaagsan. waa kana xabadii u horeysaan ku bilaabaynaa. la socod wanaagsan. waa kan waa gediha. la socod wanaagsan walaalahayga sharafta leh. siduu u ekaado waa ujeedaan, siga dhan gaduud qurux. wuu soo fuurayaa xataa dhexda, waa arki doontaan. kaasaha marka way bislaatay, siday noqotay waa ujeedaan, qurux siday u gaduudatay. markaa cuntiina arki doontiin insha allah. waa taasaha qurux, lagama sheekayn kara macaanteedana, idinkaa arki doono insha allah. waxaa rabaa inaad ka warjarisiin, caruurtana aa u suubsataan. yaa saasay usoo fuuraysaa, qurux idinkaa ka heli doono. markaas yaa ha idiin macaatahe haddaad suubsatiin. yaa waa kanaa la socod wanaagsan walaalahayga sharafta leh, sidee u ekaatay quruxda. waa taasaha macaanteedana lama soo sheegi karo.
yaa lagama sheekayn karo macaanteeda. idinkaa arki doono. xabadaan hadda kala goynayaa siday u jilcan tahay aan idin tusayaa. bataasaha lagama sheekayn karo jileeceeda. yaa bataasaha dhexdaa kaasaha waxaa laga geliyey. yaa macaanteeda lagama sheekayn karo. yaa idinkaa arki doono. hamuugaanina kaasaha koley waa ka heli doontaan. anigu waan ka helay. yaa idinkuna waxaan rajaynayaa inaad ka heshiin. saasay u jilcan tahay. saasay u jilcan tahay iyada dhanba. yaa isku dhuuq waa iyada dhanba. anaa idin sheegay, idin soo dhadhamiyey. idinkana waxaa idin rajeeyayaa inaad samaysatiin, dhadhamisiin, aragtiin qaabkeeda. yaa caruurta inay idin cunayso, inay idinka cuni kartiin. waa idin salaamayaa. waa walaashiin Baarliin oo idin leh subscribe-ka, like-ga, share-ta iga iloobina. soo dhawaada, anigana isoo dhaweeya. maalintii habeenka idin wacnaato. yaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.